baahanayaa in xildhibaanada ay xoogga saaraan ay waqti badan ku bixiyaan in miisaaniyadaasi lagu ansixiyo maalmo lagu diyaariyo waxaana ka badnaan 48 saacadood si ay u gasho miisaaniyada ay soo gudbinayaan golaha wasiirada loogu daro oo sabtidana aan u baadgarayno miisaaniyada Hirshabelle oo dhan maadaama maanta miiska saaranta waxaan qabaa berito 4 saac miisaaniyada ilaa ansixiyo laga doodo dhammaan xuquuqaha shacabka dowlad goboleedka Hirshabelle oo dhan cid ay qusayso guddoonka inuu ku amro cid shaqo ku leeyahay guddiyada ay horkacaan wixii farsamo loogu baahan si loo sheego guddigan si ku dhaqsiya ama loo saaro waa inaad ogaatid Hirshabelle inta soo galaysa iyo inta ka baxaysa haddaadan ogeyn miisaaniyada inta ka baxaysa inta soo galaysa miisaaniyada aad sheegto aad dijiso waxna sameynayso waxaan halkan uga mahadcelinayaa guddiga maaliyadda sidii ay waqtiga u geliyeen ay u soo xisaabiyeen miisaaniyada baarlamaanka guddiga loo qaban doono baarlamaanka oo lagu kabayo guddiga maaliyadda anoo la qabo mahadcelinta ee guddiga maaliyadda ay soo bandhigeen ay arrin fiican aad u wanaagsan tahay fikir waqtiga ay soo gelin loogana mahadcelinayo ilaahay maadaama ka gaarto in guddigaas uu kaba hawsan ahay aan laga dhigin in kor loo fiiriyo ay ahaato dad maamulka oo leh khibrad iyo aqoon waqtiga lagu dhicin berito markii labada goornimo ay tahay baashas haddaan dib u dhacno waxba dambe oo neeli male waxaa la rabaa wax lagu daro ee dad kale lagu siyaadiyo wixii lagu dar lahaa iyo wixii laga dhimi lahaa oo ogiye hadda ka dambe in guddi loo bixiyo iyo maxaan ka sameynaa iyo maxaan ilaa waa nasiib daro hawshuna mid maaha maanta iyo saacado ku eg maaha waa hawl aad u dheer xisaabtan badan ay jiro aan la xisaabtano madaxda naga sarreyso ee kuraasta waaweyn annaga aan ku fadhiisana codkeena ku fadhiyaan waxaan rabnaa mar walba inaan la xisaabtano la xisaabtanka marka xildhibaanka iyo loo qaadan inuu dagaal wado maskax waaye maskaxna aan isku darsano waxaan wax u leeyahay maxay ahayd sharciga miisaaniyadda hala keeno ilaa iyo hadda wax sharci ka hadlaya ma arkin waa tii hore loo yiri 2 bilood oo miisaaniyadda ansixiyo waxaan u diidnay waxay shuruucda miisaaniyadda oo lagu wadi lahay keeno ilaa iyo hadda ma arkaya wax sharci oo la keenay midda labaad haddii qorshe la keeno dhammaadkeeda tacaali xumaanay iyo guddoomiyaha guddoomiye waxaan ka codsanaynaa sharciga dastuurka akhri oo ku dhaqan xeeroosaadka kale ma ansaxsana inaan runta isku sheegno xildhibaan waxaa ka mid ah waxyaabaha la rabo inaan ka shaqeyno waajibaadka saaran xildhibaanada intaas kadib waxaan kula xisaabtamaynaa xukuumadda mar allaala markaas intaas qabsano miisaaniyadda iyo wixii aan rabnana waa samayn karnaa xukuumaddana waa la xisaabtami karnaa xuquuqda baarlamaanka waxay kula baxdaa dhowr shay gulno xelaad bilo ah waa mishaar kow gulno fadhi waxaa leedahay baarlamaanka markii uu shirkiisa u socdo gulno deegaan gulno caafimaad gulno gaadiid sahay shaqo intaas oo waxaan xuquuqaad ah malihin mishaar kale malihin waxaa markaa qodobka labaad wuxuu leeyahay faqadiisa muxuu ahaa labaad wuxuu leeyahay golaha sharci dejinta waxay soo saarayaan xeer gaar ah gulooyinkaas iyo maxay ahayd xuquuqda baarlamaanka waxaan fasaxaynaa ilaa sabtiga maanta waa 3 4 khamiis jimca waxaa la shaqaynaa maxay ahayd baarlamaanka xuquuqdiisa ama miisaaniyadda hadda si loo dhigo